السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمانتين ولدين سلامي سلام كبعدي كيس كمان تان ربنا إذن لما داقو ما هنقفك يادي لي بس محاسا ويديلك قفك وكيس كدعي مقالة أي ستيت كأوهايو وانا كيس دعي سنة كلابدكم لعتني كوغي عن شيكال إذن لما داقي إذن كنا إيجا داقيستا intaan sheekada u guda gelin waxaan rajeynayaa like-ta share-ka iyo comment-ga inaad inagu caawisiin kiiskan qofka falka geystay kiiskan waxaa magaciisa waxaa waaye Matthew Panamarenko wuxuuna u geystay wiilkiisa Jackson maalin maalmaha ka mid ah maalin sabti ayaa waxaa dhacday aabbo ayaa askar wacay askarta markuu wacay wuxuu ku dhahay wiilkayga ayaan dilay marka qofka dispatch-ga fadhiya wuxuu dhahay sideed ku dishay wiilkaaga wuxuu dhahay waxaan la dhacay baseball bat-ka ama bud maaragtay buriska ama usha maaragtay baseball-ka lagu ciyaaro ushaas ayaan la dhacay oo madaxan kala dhacay markaas waxaa la weydiiyey waa aad u dishay marka abbaa wuxuu dhahay wax baa ila hadlo wuxuu dhahaa dil maskaxdayda wax ka guuxayo waxa ka guuxayo waa un dil wax kale ma aha marka intii markuu dhahay askartii dispatch-kii askar ayuu soo diray askarta ayaa meesha imaaday meesha markay imaaday marka gacanta kor u taagaa laleeyahay gacanta kor u taag adiga xoogahaas way fahmi waayeen then waa la taysgaray odagaan markii la taysgaray garbaduub ayaa loo xiray waxaa waaye dhinaca waxaa loo qaaday marka intijeelka iyo su-aalada lala yeelanin dhinaca maskaxiyan in loo fiiriyo ayaa loo qaaday isbitaalka markii la geeyey ayaa marka waxaa dhacday odaygan daktarkii la kulmaa wuxuu weydiiyey maxaa dhacay wiilkaaga maxaad ku dishay sidii askartu u sheegay wuxuu dhahay wax baa ila hadlo waxina wuxuu ugu dhahaa dil marka adiga intii baa laga qoray maalintii marka inta asaga askarta qaaday qala qaaday meesha la geeyay askarta dad baa guriga gudaha galay meeshii arrinka ka dhacay gudaha markay saa u galeen maroor dulaac baa ka dilaacay wejigii xitaa wiilkii way aqoonsan waayeen sidii u dilay bes banaanka u soo baxeen askarta ayaga marka waxay bilaabeen inay iskugu dhisaan oo ayaga maroor dalac xun ku dhacay inay isa sabarsiyaan mid wuxuu leeyahay cunugan wax ka qabad ma lahan waa tagay oo xitaa ambulance iyo waxa looma baahan bas waxa maqlaysa marka abartiisana wiilkan odayga waxa dilay hooyadii ayaa story-ga ay maqlay marka odaygan waxa dilay hooyadiis ayaa story-ga maqlayso way soo cararaysaa way soo wacaysaa askarta isla hadlayaan waxay leedahay ay maxaa dhacay murug iyo walac baa ka muuqdo askarta waxay leeyihiin ha isdhibina tartiibsada waa idin sheegi doonaa markii aad imaadeen haddana aabihiis ayagoo la hadlaya haddana muuqaalkeedana idan waa lasoo sii daayay odayga asaga wuxuu leeyahay anagaaba hadda stress ugu furmay qof inaan la hadlaan rabaa nafteydana isdhaafiyaan ka cabsanaya buuq baa igu furan odaygii asagina waxaa la leeyahay marka dad professional aan kusoo direen oo adigana kula hadlaan si ay adigana aad caadi u dareentid marka storygan intaan sii soconin oon hore usii gelin waxyaalo badan ayaa ku jira dad badan ayaa ka muuqan doona waxaa ka muuqan doonaan wiilkiisa awowgiisa ayaydiisa dhinaca hooyadii awowgiisa ayaydiisa hadda idin la sheegay dhinaca aabbo odayga waxaa dilay walaashii wiilka therapist uu lahaa oo u imaanaya and then odaygana dad uu meesha maaragtay xagga maskaxiyinta dad uu kula jiray ama therapy-ga iyo waxyaalada ama rehabka balwada iyo waxa laga dhaqaayo dad uu kula jiray ayaa asagana ayakana meesha kasoo muuqan doonaan storyga marka qaybta koowaad waa sidaan odaygii adiga meesha maxkamadda waxaa la geeyay meesha askarta su-aalaha lala yeelana orneo maxaa dhacay wuxuu leeyahay wax baa ila hadlayo idhahay dil falkaas saasayna wax u dhaceen markay wax dhacay noo sheeg Allah markay steebyadii aa qaaday ficilka markii aad sameeynaysid maxaad sameysay ma arrinka inaan ka hadlo marrabo dhaay arrinka inaan ka hadlo ama aan furo diyaarumay askartu waxay leedahay inaan ka hadalno waa muhiim I know waan dareensanahay inay dhib kugu tahay waan dareensanahay inaad dhibsanaysid waan dareensanahay waxa aad dareemaysaa anigaba aabaan ahay waan kula dareemayaa laakiin waa muhiim inaan ogaado wuxuu leeyahay aniga kama hadli kari intaa wax dhaafsan kuma hayn marka jeelka la sii geynaa asaga markay su'aalaha la wareysanaa jeelkiisa saasay arrinkiisa ku socdaan waxaa marka walaashiisa qadka kala hadlaysa telefoonka ayaa la ogaanaa walaashiisa ayada waxay saaraysaa marka isbitaalka dhinaca dadka uu ku jiray oo rehabki ama therapist iyo waxyaaladii maraya oo xagga maskaxiyinta uu ku jiray
ayay eedaysa xilada walaalkii wax badan buu caawinaad weydiistay wax badan buu dhahay aniga yaa la bixinin ama in la caabiyo ayuu u baahnaa laakiin waxaa failgaray systemka ayaa failgaray asaga ma ahan maanta waxa qaladka geystay laakiin waa systemka hooyadiisa ayay isla hadlayaan oo iyadana qadka markii qofka jeelka uu ku jiro codka askarta way duubaan ayadana waxay leedahay yes wiilkayga ficilkan adiga ma geysanin adiga wiilkaaga ma dilin waxa waaye waxyaalada kaa dhaxalay ama jinnidii wax kugu dhex jiro ayaa ficilkan kugu sababay inaad geysatid qof fiicanaad tahay qof xun ma tihid wuxuu leeyahay mar dambe aaba ma noqonaay aaba dambe layma dhahayo adiga waa qof waxaad arkaysaa murugti ka muuqato aabihiisa ay isla hadlayaan haddana aabiya wuxuu leeyahay niyaho way dhacdaa waxaan waa arrin qof kasta ku dhaci karo wax adiga control u haysa ma ahan waa tustay dadka inaad wiilka waa la ogyahay inaad wiilkaaga jeceshahay marka wiilka asaga intaanu shay loo sheegayo asaga wuxuu leeyahay isma cafin kari arrinkan oo arrin aad u xun dhibaato weyn ayaan geystay murugta ayaa asaga markasta marka u muuqato askartii markii asagii ay la hadlaynayo isagii su-aaladii iyo wixii ay wax kasoo saari layihiin waxay la fadhiisanayaan marka qaraabadii ehelka wiilkiisa awowgiisa iyo ayadiisa xagga hooyo ayaa lala fadhiisanaa ayadii waxay leedahay ninkan horta waa nin bipolar qabo waa nin lagu kaco oo xanuuno maskaxiyana wax ku kaco waa nin wax istuso hallucination iyo adduunyo kale ayuu arkaa awowgia marka haddana soo galaya hadalkii oo dhinaca hooyo wuxuu leeyahy yab waa nin hallucination qabo and then waxay leeyihiin laakiin ninkan nin violent maahan nin gacan qaado ama dad wax u geysta ama dad dhibo intaaba maahan awowgina wuxuu leeyahy wiilkiisa u jeclaa noloshiisa dhan naftiisa ayuu ka jeclaa wiilkiisa kalilaabo iyo wiilkiisa u jeclaa walaashiisa haddana waxaa la maqlaya marka iyadoo qadkii telefoonkii kala hadlayso askarti waxay leedahay niyahow maalin maalimaha ka mid a markay ahayd 4am gurigaadoo joogto oo la wada hurdaayo ayaa hooyo waxay ku maqashay adigoo keligaa jikada dhex taagan oo qaylinay sidoo murmaysid markood inay telefoonaad ku jirtay u malaynaysa laakiin markay ku fiirisay waaba keligaaga isla hadlaysa waqtigaa oo may dhacday uu leeyahay oo warba wax qofan ka haynin ahaan ayuu ugu jawaabaya way dhacday leedahay hooyo ay sheegtay askartii marka haddana trigan waxay la fadhiiso askarta maray dadka la fadhiistaan maray telefoonka dhegeystaan waxyaala ayaa meeshan la isku dhex wadaa and then askarta waxay la fadhiisanaysaa cunug yaraa hooyada Sam loo yaqaanaa wiilka dhashay marka Sam waxay leedahay horta ninkan waa nin dhibaato maskaxiyan badan qabo askariga wuxuu leeyahay sidku ogaatay waxay leedahay intaanan aniga asaga xiriirka aanan bilaabin waxaa dhacday wuxuu iska soo tuuray dabaqa afraad waa jabay and then waana qaylinayo murmayo gabar ay mar hore kala tageen ayuu eeda saaray waxaa kale ay dhacday marar badan aniga asagoo guriga isla joogno ayaa maalin habeenada ka mid ah inuu soo kacay soo qaaban oo jikada taagan oo keligiis la murmayaan arkay markaan weydiiyana wuxuu leeyahay waa gabadhiga tagtay iyadoo sidaasoo qofka la dagaalayo oo kale ayuu hadalkiisa dhan ka dhigaya marka waxay dhahday taa waxaa dheer marka ay leedahay habeen maqrib ahaana anoo guriga maalin imaanayo ayaa waxaan arkay wax wadada dhex yaallo xitaa ka leexadaan isdahayay geed baan ku dhacay dhahday markaan gaariga ka soo baxay oon fiiriyana waaba ninkii oo qaaban oo wadada dhex jiifo kaaga daran wiilkii yaraa markaa wiilkooda sanadka wuxuu jiraa 2 jir u ahaa waqtiga ay arrinkan ay ka sheekeynayso wadada dhexdeedu uga soo dhaqaaqay isagana wadadu dhex dhigay marka waxay leedahay ninkan marka waa nin noocaay oo waxyaalada dhibaatada qabo xitaa arrinka maxkamada ayuu u galay maxkamadda askartu way fiiriyeen wuxuu dhahay no contest oo basically wuxuu leeyahay dambigan waanan galan madhahay mana gelin madhahay oo kamid dooday marka judge-ka ayaa go'aanka gaaray waqtiga marka judge-ka go'aan wuxuu ka gaaray inuu loo diro meesha ma aragtay rehab-ka ama dadka lagu hayo psych ward-ka dadka maskaxiyanta ayuu u diray halkaas ayaa wuxuu ku soo jiray 3 week then waxay leedahay ninkan dhibaatada maskaxiyanta ama bipolar-kan iyo waxyaalada u dheeraa waxay tahay horta aniga asaga waxyaalada aan ku saaxiibnay ma xiriirkeena ahaa waa balwad heroin-ka ayuu aad u cunaa parkska waxaa ku bilaabay mar injury gaaro dhakhtarka soo siiyey kaniiniyada soo siiyay xanuun baabiye ahaanta ayuu ku jiray sidaasuu ku bartay waxaa kaloo bartay methkana waa midka saaxiibka daroogyada kale la cunayay uu kusoo introduce gareeyay ku leeyahay daroogadana waa jirtaa kaalay nala cun waxay dhahday ninkan waxa dhakhtarka ay kusoo diagnose gareeyeen opioid daroogada loo yaqaano iyo alcoholka inuu dependent ku yahay uu ka maarmi karin jirkiisa aad oo la qabsaday and then markii bipolar-kana waxay dhahday waxa lagu soo sheegay markay ahayd 2019 so ninkan waxay leedahay hallucination-ka iyo waalidaas iyo waxyaaladan waxaa u sii dheer balwadda iyo waxyaaladan uu ku jiro
so ogow askarta marka waxay aruurinaysaa xog badan ninkan halkee wax ka haystaa waana meesha aan leeyahay inaan rabo inaan ogaado meeshay arrinkiisa ka imaanayaan maxaa waaye maskaxiyan ayaa wax ka haystaa ma balwada ma arrin kaloo isku buuqa waxay idinkeydin la tahay waxaan rabaa idinkan inaad commentiga insha allah nagula wadaagtiin sheekadan sii wado ninkan marka waxaa dhacday wiilkiisa yaraa marka maalinta ficilkan uu dhacayo oo ay tahay bisha 3/5/2021 ayaa wiilka yar wuxuu lahaa ballanta uu la lahaa ballanta la lahaa marka qof therapist oo loo yaqaano Jacqueline waxa waaye behavior therapist wiilka marka ballantiisa intaas marka guriga asaga cunuga lama joogo ayeydii hooya cunuga haysato oo haysata maxaa la dhahaa custody-giisa iyada la wareegtay ayeydii ayaa keentay markay keentay waxay keentay 6 saac oo kale ilaa 6 saac iyo 10 daqiiqo ay la joogtay marka waxay warniyo kaniiniyadaadii dhakhtarka ku soo qoray waxyaalahaadi ma qaata waan qaataa oo dhahay wax arrin iyo dhib ma jiro waxiga xaalkaygu waa degan yahay marka 6 saac iyo 10 daqiiqo ay ka tagtay markay 6 saac iyo 38 daqiiqo ay tahayne night therapist ko text u diray wuxuu leeyahay maanta aniga si fiican ma dareemay ha u imaanin wiilka ballantiisa ha u imaanin saacadana marka 38 daqiiqo waa waqti uu askariga leeyahay maxaa dhacay ma wiilka waqtigii la dilay ma saacadaas ay arrinkan dhacday ma waqti kale ay dhacday askariga halkaas uu rabaa inuu ku ogaado waxa waqtiga saacada 38 daqiiqo ku aadan oo wixii dhacay marka inta hadda markii ay soo dhaceen oo dad ninkan wuxuu haystaa dad support iyo dad aaminsan dad ku raacsan oo leeyihiin oo adiga ma ahayn waa jiniyadii waa wax ka dhaxalay kiiska intuu iska bedeli doonaa marka inkastoo dadka soo taageereen markii koowaad arrinka dhaceen dhibaatada dhacday ay la leeyahay adiga ma ahan waa jiniyada kugu jiro adiga ma ahan waa systemkan ku taageerin adiga ma ahan waa dadaashay waa jeceshay wiilkaaga aaba wanaagsanaa tahay meeshan ayaa arrinka iska bedeli doonaa qaybtan waa marka qaybta kale aan rabo inaan idinka haddana idinla wadaago saad aad u fahantiin labada dhinac oo keeska askarta markay xogta aruurinaysa ay aragtay tariibkan waxaa dhacday waa askarta moogtahay hal mar dadka su-aalada ma weydiinaysa marar ka badan baa lagula fadhiisanaa as long as xogta ilaa intay rabaan ka helayaan waa xog bay raadinayaan waxaa dhacday wiilka ayeydiisa maxaa la hooyo iyo awowgiisa wuxuu iska soo goynaa waan ogaa inuu asaga arrin falkan uu plan gareynayo ka dambeeyaba asaga ayaana sameeyay sidii ulajeeday ahayd ma ahayn wax lala hadlay ama wax kale waa wax la kacu leeyahay ayeydiisa hooyana waxay leedahay ninkan daawadu idhahay xitaa waan laqay beentiis ayay ahayd oo muu laqin markaan hooyadiisii dad aan la sheekaystay waxaan ogaadaba inuusan daawadan weli cunin laakiin been ii sheegay awowgiisa wuxuu leeyahay marka aabba haddana wuxuu leeyahay inaan kala fogaana ayay ahayd wiilka waaban ka tashanay si aan uga fogeyno waayo wuxuu noqonaa aabba oo bad influence ku ah caafimaadka cunugiisa iyo nolosha wiilkiisa arrin marka askarta aysan ogeyn ayaa Sam haddana ka hadashay iyadana markii la sii weydiiyay oo waraysi dheer la sii yeeshay waxay dhahday ninkan horta aad ayuu ugu haystay uu ugu waalnaa jacayl waale ayuu ii qaaday marka anigana nolosha balwada waan ka soo baxay dhado balwadani waxaan waan iska dhaafay xiriir kalaan samaystay ninkan xiriirka darteeda ayay uu dhahay naftayda hadii anigu ku waaya camal nolol kale ma jirayso waxaan ku ka taagnaanaa ama aan ka noolaanayaba ma jirto askariga ayaa marka wuxuu weydiinayaa qofkii therapistiga waxay dhahaa ma u malaynaysaa ninkan inay waali sababtay inuu isdilo ama maskaxiyan dhibaata inay sababtay inuu cunugiis ku dilay mase wax kale waxay leedahay markii koowaad saasaan u malaynay laakiin markaan la sheekaystay Sam on arrinka fiiriyay ninkan cunuga oo la kacu u dilay wuxuuna u dilay inuu ku xanuunjiyo hooyadii waayo maadaama ay ka tagtay wiilkeedana ay jeceshahay xanuun dart inuu iyada dhaawac sida ku gaasiyo ayuu cunuga u dilay aniga markaa waxaan aaminsanahay oo la kacay inay tahay leedahay so already ayeydii hooyo maxaa la jiray ayeydii hooyo iyo awowgii hooyo waa dhinacaas ay mareen gabadha cunmaha dhashay waxay leedahay may arrinka saan kale maana waxa laga yaabaa dhinacan inay alternative kan inay jirto oo arrinkan sidaan wax ku dhaceen therapistiga saan u aaminsan yahay marka dadku waxay bilaabay marka inay ka shalaayaan ay leeyihiin Sam waxay leedahay wish maalintaas wax baan dareemay in cunuga aan ka hadlo haddana maadaama hooyaday wiilkayga aan dareemay inay iyada la wareegto iyada hooyanimo u arkaba aniga uusan hooyo ii arkin waxaan isleeyahay maybe ha dhexgelin laakiin waan dareemay maanta inaan erey ka dhaho waan jeclaa laakiin maanan ka oran
askartii marka waxay dhaheen niyahow noo sheeg 28 daqiiqo maxaa dhacay wuxuu dhahay waxba ma dhicin marka cunuga waqtigaas maa dishaa marka caadi la weydiiyey mayuu dhahay arrinkan waqti ka dambe u dhacay si u dhacay marka la dhaha asaga waa baxaa meel kale ka baxaa waayo mar rabo sida u dhacay inuu ka hadlo inkastoo uu isbitaalka markii koowaad uu tagay markii la geeyey uu therapistiga u sheegay u dhahay waxbaa ila hadlay oo dhahay basementiga aad buriskan ka soo qaado cunuga la dhac adigana maaragtay safe qortiska iga goy buriskan baan soo qaatay sidii aan cunuga ku dilay isbitaalku soo sheegay laakiin askariga hadda mar rabo inuu u sheego markastoo askariga arrinkan soo qaado wuxuu leeyahay niyahow waxaan u baahanahay takhtar maskaxiyana u baahanahay inaan takhtar la kulmaan rabaa bas askartii marka waxay ogaadeen markuu text messageadan diraaye telefoonkiisa ayaa la fiiriyey waxaa la ogaaday inuu Jacqueline therapistiga u wacay uu telefoonkiisa cod u dhaafay marka muu expect garayn inuu wicitaankaas sameeyay laakiin wicitaankaas ayaa dhacay markuu wicitaankaas dhacayna wiilkiisa ayaa waxaa laga dhex maqlay codkiisa telefoonka waana markay aaminsan yihiin cunuga yar waqtigii ugu dambeysay inay tahay hadalka waxaa kale marka la ogaaday ninkan inay dhacday inuu daroogo kaniiniye iska badiyey ama daroogo balwadu iska badiyey oo xitaa overdose garay isbitaal loola cararay isbitaalkii markii lala cararay oo takhtarkii la geeyey meesha cabaaru ku jiray report ayaa marka qofka loo qoraa psychiatrist uu la kulmay wuxuu dhahay ninkan non violent horta asaga wuxuu dhahay violent me qof degananahay psychiatrist kan marka wuxuu soo qoray ninkan waa nin rajo leh oo nin soo kabci doono soo toosi doono future kan maaragtay society-ga wax wanaagsan u tari doono ayuu egyahay waqtigu marka isbitaalkan ka soo baxayo iyo wiilkiisa maalinta uu dilayo waxa u dhaxaysa 8 bari bis 8 bari kadib wiilkiisa ayuu buriska la dhacay oo sida fashaxan u dilay inta marka meesha sheekada ka sii bedelmi doonto askarta marka waxay fiiriyeen noloshiisa saan idin dhahay dadka ku hareersan asxaabtiisa wixii dhan waxay la sheekaysteen marka dad kula jira meesha rehabka ama balwada la iskaga dhaqo nin kamid ah wuxuu dhahay maalimaha kamid ah isagoo isla socono isla wareegayno ayaa wuxuu ugu dhahay inuu wiilkayga dhibaato xagga caafimaad ahaan ayuu qabaa mar rabi uu dhahay inay nolosha ku rafaado waxaan ka jeclaan lahaa soo dhinto marka wuxuu dhahay waan aamini waayo dhahay ninkan out of nowhere ma filanaynin ereygan meel xitaa ka yimaado moogu dhahay ninka muku ereygaas ka soo gooyay mid kale wuxuu dhahay waxaan arkaa dadka alale uu jecel yahay uu rabaa inta aan asxaabta ahayn uu dhahay gurigiisa hadda maraan joognay asoo jecel wiilkiisa tusay maan arkin asoo xambaaray maan arkin asoo la sheekaysanay maan arkin waa un ka fogaa un hataa lama hadlaynin u dhahay mid kale haddana soo baxay oo markuu newska arkay aabba wiilkiisa dilay sidaanu dilay ayaa isagana askartii ula hadlay wuxuu dhahay ninkan wuxuu igala hadlay uu dhahay inuu cunugiisa inuu dilaayo wuxuuna igu dhahay reasonkan u dilaayo cunugayga wuxuu qabaa autism marka nolosheeda ayuu hakad u keenaya maadaama uu autism qabo aniga ayuu hakad ii keenaya marka hakadka dartiisa ayaan rabaa inaan nafta dhaafiyo marka wuxuuna igu dhahay ama waxaan ku dilaa inaan ceejiyo ama buris ayaan la dhacaya oo buriskaas ayaan ku dilaya labadaas baan siyaabahan rabaa inaan ku dilo dhahay waan yaabo dhahay maxaa qaldan marka waan aamini waayay marka hadda aan arko dhahay newska inay ku jirto labada option mid kamid ayuu ku dilay dhahay oo buriskii ayuu la dhacay then autopsy ayaa soo baxay oo resultigii askarta maaragtay markii qofka loo diro in lasoo fiiriyo muxuu ku dhintay wiilka buriska lafihiisa ayay jajabiyeen lafaha maskaxda madaxa ayuu jajabiyey jirka madaxiisi waa gogo'ay dhiigbax xun baa ku dhacay so waxyaalada u dhintay waxa waaye waa severe awood culus oo aabaha u sheegtay oo cunugiisa xun u garaacay ayaa sababtay xitaa wajigiisa waa la aqoonsan waayay cunugiisa u dilay bas marka askarta ayaa waxay bilaabeen inay asxaabtiisa weydiiyaan maxaad u malaynaysiin outcome-ka meeshan maxaad isleedihiin inay noqoto gabar ay asxaab ahayn waxay dhahdeen waxaan rajaynayaa ninkan inuu society-ga u fiicnaan doono meel caawimaad oo maskaxiyan in la geeyo society-gana uu u fiican yahay dhahday markaas askar wuxuu dhahay ma society-gu hadda u fiican yahay may hadda ma ogey dhahday laakiin mustaqbalka inuu fiicnaada laga yaaba hadduu helo caawinaada uu rabo uu raadinayo inuu helo and then waxaa la weydiinaya marka asaga maxaad rajayn lahayd allahay wuxuu dhahay waxaan rajayn lahaa in meesha dadka maskaxda lay diro oo halkaa laygu soo daway laakiin jeel ma rajayn in lay diro markaas asaga wuxuu weydiinaya askariga meeqaad u malaynaysaa u dhahay in lay xiri doono askariga wuxuu leeyahay aniga ma ogi
marka ninkan November markay ahayd 2023 wuxuu qirtay marka dembigii 3 dembi ayuu qirtay. mid waa inuu wiilkiisa isaga dilay ayuu qirtay. midda labaad inuu xaday ama uu kidnap gareeyay cunugiisa ayuu qirtay. midda saddexaadna inuu nolol cunug halis waalan geliyay ayuu qirtay. intaaba markuu qirtay, judge-kii maxkamadda marka wuxuu dhahay xukunkii maalintii la xukminayay, ninkii judge-ka oo hadlayo oo xukunka bixinaya wuxuu dhahay nin hadalka badan joojiye, bobsi waxaad meesha ku hayso, waxaan rabaa inaan koofigayga aan soo cabe. judge-kii marka wuxuu ku xukumay xabsi daa'in inuu ku dhamaysto, laakiin markii 45 sano uu xirnaado inuu u qalmo inuu codsado in la soo sii daayo 45 sano kadib. marka ninkan marka intaas ay arrinkiisii noloshiisa noqotay, hooyadiis ayuu la hadlaa markasta. hooyadiis waxay leedahay niyow dadaal, waa fiicnaani doontaa, arrinkaaga waa isbedeli doonaa. hooy wuxuu leeyahay xitaa haddii aniga aan isdhaafo, dadka jeelkaaba i dhaafaynin, hadday ogaadaan waxa aan sameeyey ama qaladka aan geystay, ayakaaba iga goynayaanba oo ficilkaan ii dhaafaynin. may waxay leedahay saasa dhihin, waxaan waad ka soo kabsan doontaa, ficilkan adiga maadan isku samaynin, waa jinniyada iyo waxa kaa dhexadlaay, aaba fiican ayaad ahayd, wiilkaagana waad jeclayd. markuu markastaba walaaca iyo murugta ku badan yahay, maalinta dab waxay dhahdeen waan dareensanay dad waxaad leedahay, laakiin naftaadana cafi, inuu adiga iscafi oo wiilkaaga aad dishay, ilaahaygagana camal wadadiisa isku toosanaa ama isku toosi, wixii aad samayn lahayd waa taqaanaa. aniga ahaan marka waxay leedahay haddaad doonto inaad isyaacayso maybe I don't know, laakiin waxay leedahay markaa kadib waxaad samayn lahayd waad garanaysaa. markay ahayd December 7 2025 ayaa waxaa dhacday ninkii oo jeelkiisa ku jiro oo calool u yaallo oo soo meeda loo tagay. marka qisadan saan markii koowaad idiin soo sheegay ma ahan hebel yaa dilay, laakiin waxaa waaye ma xanuunka maskaxiyanka iyo dhibaatadaasa sababay inuu wiilkiisa dilo. waana fikradiina waxaan idin weydiina waxay kula tahay, ma xanuunka maskaxiyanka ayaa sababay inuu wiilkiisa dilo, ama ma waxaa sababay daroogadii iyo balwadii iyo waxyaaladii inuu ku dhex jiray inuu cunugiisa iska dilo, ama midka saddexaade ma waxaa sababay cunugiisa xanuunka uu qabo uu leeyahay nolosheeda hakada ayuu gelinaya haddaan dhaafo, midaas ayaa sababtay inuu cunugiisa iska dilo. halkan waxaa inoogu eg storiga Jackson Panamarenko iyo aabihiisa Matthew Panamarenko. waxaan idin rajaynayaa kheyr badan, salaada ha la ilaaliyo, cibaadadana ha lagu fara adkaado. intaan ka kulmi doono mar dambe, kheyr iyo barwaaqo ayaan isku ognahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.